kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal meel walba aad adduunka ka joogtaan ku soo dhawaada muuqaal cusub. muuqaalkeena waxaynu ku soo qaadanaynaa jasiirad yar oo ay ku nool yihiin 6 qof oo uu ku yaal hal hotel oo qura isla markaana aan baabuur lahayn oo loo magacaabay jasiiradda ugu wanaagsan adduunka 2019. inta aanan gudagelin muuqaalkeena maanta daawadaha sharafta leh waxaan ka codsanaynaa inaad ku soo biirto barteena YouTube-ka oo aad subscribe saarto sidoo kale haddii aad ka heshay muuqaalkan aad like saarto si aan u ogaano bal kuwa ay yihiin muuqaalada ay saaxiibadu xiiseeyaan. mahadsanid. jasiirad yar oo 6 qof ay ku nool yihiin oo aan wax baabuur ahna oolin ayaa loo aqoonsaday tan ugu fiican adduunka 2019. jasiiradan yar oo ku taala xeebaha galbeed ee waddanka Iceland ayaa loo aqoonsaday midda ugu quruxda badan 50 jasiiradood ee ugu sarreeya caalamka 2019. bogga caanka ah ee Big 7 Travel ayaa soo bandhigay liiska 50 jasiiradood ee ugu fiican adduunka 2019 waxaana kaalinta koowaad ka gashay jasiiradan yar ee la yiraahdo Valletta Islands, taas oo dadka ugu badani ay tagaan xilliga kulaylaha oo qura halka qaboobahana 6 qof dad aan ka badnayn ay ku nool yihiin. waxaa jasiiradan ay caan ku tahay maktabadda ugu qadiimisan Iceland taasoo la furay sanadkii 1864. waxaa kale oo ku badan jasiiradan shimbiraha oo ilaa 35 nooc oo kala duwan ayaa ku nool halka 150 nooc oo dhir kala cayn ahna ay ku yaalaan. cabirka jasiiradan waxay gaaraysaa 1.9 kiiloomitir waxaana la diiwaan geliyay in 9,000 oo dalxiisayaal ahi ay booqdeen jasiiradda Valletta Islands sanadkii 2017 iyadoo ay jasiiradan ku yaalaan dhowr guri iyo hal hotel oo qura. waxaa intaasi nooga eg warbixintii ka hadlaysay jasiiradda yar oo ay ku nool yihiin 6 qof oo uu ku yaala hal hotel isla markaana aan wax baabuur ah lahayn oo loo aqoonsaday midda ugu wanaagsan adduunka 2019. haddii ay ku xiiso gelisay fadlan nagu soo biir oo subscribe saar barteena aragtidaadana inoogu reeb qaybta hoose ee kommentiga. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan.